baaritaan indhaha aaday kadib waxaa lagu dhahay indhaha way qalan yihiin. su-aasha markood maskaxda kusoo dhacaysa waxay tahay horta indhaha inay qaleel noqdaan maxaa keenayo. muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago 10 arrimood oo sababto ama ku keenaysa indhaha inay qaleel noqdaan. muuqaalkan wuxuu ka mid noqon doonaa muuqaaladii taxanaha aan kaga hadalnay indha qaleelka. arrinta koowaad oo ku keenaysa indhaha inay qaleel noqdaan waxay tahay da'daada oo kororto. dabcan qofka markay da'diisa kororto waxyaabo badan la dirisayo la yaabna ma leh qofka markuu da'diisa weynaato in indha qaleel u yeesho. arrinta labaadna waxay tahay wax akhriska badan oo qofka saacado badan wax akhriyo si aan kala go' lahayn. mid laga hadlayo waxay tahay si aan kala go' lahayn. badanaa waxaa lagu arkaa ardayda markay wax akhrinayaan oo kale ama imtixaano ay leeyihiin xilliyada aad wax u akhrinayaan oo kale inay isku arkaan indha qaleelka. arrinta saddexaad waxay tahay isticmaalka shaashadaha mobile, laptop, computer mid walbo oo si saacado badan isticmaal si aan kala go' lahaynna way ku keeni kartaa indhahaaga inay qaleel noqdaan. arrinta afaraad oo keeni karta qofka inuu indha qaleel yeesho waxay tahay haddii uu isticmaalo daawooyinka qaar. tusaale ahaan haddii qofka isticmaalayo daawooyinka xasaasiyadda uu leeyahay kale xasaasiyadda indhaha uu kale u isticmaalayo. sidoo kale haddii uu isticmaalayo qof dumar ay tahay oo isticmaalayso daawooyinka oo dhalmada lagu control oo kale way u keeni kartaa indhaha inay qaleel ay ka dhigto. iyo sidoo kale haddii uu qofka isticmaalayo daawooyin dhimirka xagga dhimirka hadduu isticmaalayo kale. arrinta shanaad oo ku keeni karto indhaha inay qaleel noqdaan amaba ku keento waxay tahay cimilo kulul. haddii aad ku nooshahay meel cimiladeeda aad u kulushahay, kuleel bas ma ahan, waa kuleel qaleel la socoto. markaa jawiga magaalo ayadoo kulushahay magaalo kale ay kulushahay waxay ku kala duwanaan karaan jawiga qaleelka. tusaale ahaan kuleelka uu leeyahay kale Soomaaliya iyo kuleelka uu leeyahay magaalada Mombasa oo kale kala duwan. arrinta lixaad oo ku keeni karto indhaha inay qaleel noqdaan waxay tahay inaad isku dhigtid dabeel dabiici ah, sida inaad banaanka kale haddii aad meel banaan oo kale aad joogtid oo dabeel badan ay jirto kale dabeesha si toos indhaha ugu dhacayaan waxay ku keeni kartaa indhaha inay qaleel noqdaan. arrinta toddobaadna waxay tahay oo indha qaleel ku keeni karto in aad isku dhigtid dabeel aan dabiici ahayn. aan ula jeedo kale tusaale ahaan mukeefka kale, marwaxad oo kale, ama haddii aad gaari kaxaysid oo kale wuxuu leeyahay mukeef marwaxad isla socoto kale oo toos indhaha ugu dhacayo. arrinta sideedaadna waxay tahay haddii aad isticmaashid baliisha indhaha mise contact lensiga mise cadisaadka mid aad u taqaanid saacado badan ama si aan loogu talagelin ayadana way ku keeni kartaa indhahaaga inay qaleel ay noqdaan ama saameyn indha qaleel inay ku keento. arrinta sagaalaad oo ku keeni karto indhahaaga qaleel noqdaan waxay tahay markii aad qaliin indhaha gashay kadib. qaliin walba indhaha hadaa gashay kadib waxaa ku keeni kartaa qaliinkaas indhahaaga inay qaleel noqdaan. arrinta ugu dambeyso arrinta 10aadna waxay tahay cudurrada qaar ee qofka ay ku dhaco. tusaale ahaan haddii xasaasiyad ay ku dhacdo kale oo indhihiisa haddii ay ku dhacdo kale cudurka rheumatism oo kale intaas waxay u keeni kartaa indhihiisa inay qaleel noqdaan. 10kaas arrimood aan hadda sheegnay waa 10 arrimood ugu cadcad oo ku keeni karto ama ku sababi karto indhahaaga inay qaleel noqdaan. adiga indha qaleel ma leedahay oo dhakhtarka indhaha ma kaa sheegay? sidoo kale 10kaas arrimood aan soo sheegay midkay isleedahay way ku keentay mise way ku sababtay? intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabeynayna. haddii aad muuqaalkeena ka faa'iidaysta like noo saar, asxaabtaan la wadaag. meel walba adduunka joogtaan waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo indho fiyow.